waa dhacdo xanuun badan oo ay la ilmeeyeen kumanaan Soomaali ah iyo dhammaanba inta damiirkoodu nool yahay. Ilaahay ha u naxariistee Xaashi Cumar Xasan oo ah muwaadin Soomaaliyeed. Waxaa ku dhacday dhacdo naadir ah. Waxa uuna 17 sano si sharci darro ah ugu xirnaa dal shisheeye, isagoo ku eedaysnaa dil been abuur ah. waxaana hormuud u ahaa in marxuum Xaashi dambi uusan gelin dusha laga saaro dad Soomaaliyeed sida uu ku sheegay waraysi uu bixiyay. sidoo kale wuxuu sheegay marxuumku in uusan dawladdiisa ka helin wax gurmad ah, taasi oo dhaawac iyo qalbi xumo ku ridaysa muwaadin Soomaaliyeed oo dawladdiisii ka waayay wax gurmad ah. kadib markii lagu waayay wax dambi ah 17 sano uu xirnaa kadib, waxaa magdhow loo siiyay lacag dhan $3 milyan oo dollar. wuxuuna go'aan ku gaaray inuu dib ugu soo laabto dalkiisa hooyo, waxaana loo xaqiijiyay muddo yar oo uu joogay inuu masaajidna dhisay, ceelna qoday, isagoo ku sii jiray sidii uu caawin lahaa dadka Soomaaliyeed ee duruufaha gaarka ah qaba. Ilaahay ha u naxariistee maanta ayaa lagu dilay Muqdisho, wuxuuna u dhintay dhaawac cuslaa oo ka soo gaaray qarax loogu xiray gaarigiisa. anigaan idinla hadlayaa maanta anigoo daawanaya waraysi uu lahaa marxuumku oo uga hadlayay dhibaatadii adduunka loogu geystay intii uu noolaa iyo waxa ku dhacay 17 sano ee uu ku xirnaa waddanka Talyaaniga, oo aan aad uga murugooday tacadiga loo geystay. ayaan Facebook ku arkay geeridiisa, waxayna ii noqotay mid qalbigayga taabatay oo aan la ilmeeyay. waxayna ii noqotay wax aan suuragal ahayn ilaa la xaqiijiyay. daawadayaal, waxaan dhacdadan naxdinta iyo urkutaalada leh idinla wadaagay oo aan idin xasuusiyay inaan u wada ducayno walaalkeen Xaashi Cumar Xasan. waxaana waraysiga uu bixiyay marxuumku inta uusan dhiman ka hor, Ilaahay ha u naxariistee, aan idin dhigi doonaa qaybta hoose ee commentiga, waxaana idinkugu xiri doonaa pin si aad u daawataan uguna ducaysaan marxuumka. Ilaahay ha u naxariistee.